kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warbaahinta Baraawe qodobada maanta warka Baraawe news ugu doorka roon waxaa kamid ah daawadayaal madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa booqasho hal maalin ku jooga magaaladaas Doha ee dalka Qatar oo halkaas wafdiga uu oslay madaxweynaha Turkiga oo la tagay dalka Mareykanka iyo Shiinuhuna Pacifiga ayay isku haystaan iyadoo dowlad Turkiga ebed ugu xumay ay halkaas oo soo bandhigay dalka Shiinaha madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta dalalka Afrika uu ku amaanay sida ay COVID-19 ay uga hortageen intaas iyo kala Baraawe news oo faahfaahsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka waa maalin axad taariikhdu ay ku beegan tahay 5 July 2020 aan ku bilownay daawadeen madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa booqasho hal maalin ku jooga dalkaas Qatar ee magaalada Doha madaxweynaha Turkiga ayaa Doha la tagay wafdigii ebed ugu cuslay iyadoo wasiirada dhaqaalaha iyo wasiirka difaaca Hulusi Akar iyo afayeenka madaxtooyada ay ku helinayeen safarka madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ku tagay magaaladaas wasiirka arrimaha dibadda dalka Qatar Maxamed Abdirahmaan Al-Thani ayaa sheegay inay labada dal ay yihiin laba dal oo aad u saaxiibo ah walaalana ah sida uu sheegay Masar Abdirahmaan Al-Thani oo wax laga weydiinayay xiriirka kala dhaxeeyo dalka Turkiga dalkaas Liibiya ayuu sheegay inay labada dal ay masaka yihiin aysan dalalka Turkiga iyo Qatar aysan doonayn iyagu inay meeshaas ay ka cajiimeystaan laakiin balse ay doonayaan dalkaas dawladnimadiisa iyo wax walba ay la garab taagan yihiin sida uu sheegay wafdiga madaxweynaha Turkiga ayaa waxaa soo dhaay amiirka dalkaas Qatar la fool ay yeesheen ay heshiismo aad u badan ay ku kala saxiixdeen magaalada Doha ee dalkaas Qatar iyadoo dalka Turkiga iyo dalkaas Qatar ay maalmihii ugu dambeeyay soo dhawaanayeen dhinaca iskaashiga iyadoo 2017 ay ahayd Qatar markii la go'doomiyay dalalka Khaliijka ee dalka Turkiga oo halkaas geeyay militarigi ebed ugu badnay iyadoo dalkaas Qatar amiirka talada dalkaas haya Amiir Tamim lagu soo waramayo dhinaca sirdoonka oo la helay inay talada ka tuuraan dalalka kamid yihiin Sacuudiga iyo Masar iyo Sultanka Imaaraadka Carabta balse madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ku hagoogtay kan badbaadiyay afkambigii ay la damacsanayeen dalkaas yar ee Khaliijka kamidka dalalka Mareykanka iyo Shiinahana waxay isku farasaar tageen dalkaas South Sea China badda Pacifiga sida lagu soo waramayo wasaaradda gaashaandhigga dalka Mareykanka ayaa sheegtay inay Mareykanku oo dalalka oo Shiinuhu u buubaayay ee yar ee gacankaas ku yaala oo ka waabi doono sida wasaaradda gaashaandhigga dalka Mareykanka ay sheegayso Shiinaha ayaa suguna maraakiib dagaal u soo diray baddaas oo indhaysa soo Mareykankuna maraakiibta kala US Limited iyo US Ronald Reagan ay joogaan halkaas maraakiibta diyaaradaha tuurta ku ridday ee aadka u daran Mareykanka ayaa sheegay inay dalalka saaxiibka yihiin ee gacankaas ku yaal oo ka waabi doono Shiinaha hadduu isku dayo ficilo xun oo dalalkaas oo ku handadayo iyadoo wargeyska Journal War uu sheegayo inay dalka inuu sheegayo Mareykanku saraakiishiisa sarsare dul saaran maraakiibtaas waaweyn ee diyaaradaha dusha ku tuurta lagu soo waramayo inuu sheegay inay ka waabi doonaan Shiinaha hadduu dalalkaas oo ficilada xun uu kula dhaqmay amba awoodda u sheeganayo Shiinaha ayaa iyaguna dhankooda sheegay inay wax walba oo gacankaas ka dhaca oo Mareykanku dusha ku rida doono sida ay sheegayso militariga dalkaas Shiinaha afayeen u hadlay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta asaguna wuxuu ku amaanay qaaradda Afrika sida ay uga hortageen faafaha daran ee COVID-19 Masar Kenyatta ayaa carabka ku adkeeyay inay tahay in qaaraddu ay isdhigan sida sheegay inay dad gaaraya 400,000 oo qaaradda uu ka saameeyay faafaha daran ee COVID-19 dad gaaraya 10,000 oo qofna uu ku dilay iyadoo dalalka adduunka oo Mareykanku hadda hogaaminaya xanuunka faafaha daran ee COVID-19 dadkii ugu badnay ay Mareykanka ay ku geeriyoodeen ama dadka uu haleelay faafaha daran madaxweynaha Kenya Masar Kenyatta ayaa sheegay
in loo baahan yahay inay qaaraddu wada shaqayn buuxda yeelato si liiskana warhayo xaaladda covid-19 halka ay marayso, loona baahan yahay iskaashi muuqdo oo looga hortago faafaha daran, sida uu sheegay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo dhinaca internetka shir ah oo qaaradda Afrika ka qaybgalayay. Somaliland iyo Taiwan, safiirka dalka Soomaaliya u fadhiya dalka Shiinaha ayaa sheegay in Shiinuhu oo madax banaanida iyo qaranimada dalka Soomaaliya ay dhowrayaan, sida uu sheegay Safiir Jin. Safiirka ayaa goor sii horeysa madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya kula kulmay madaxtooyada dalka Soomaaliya looga arrimiyo. Safiirka iyo madaxweynaha ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal, Shiinaha iyo dalka Soomaaliya. Safiirku waxa uu sheegay inay Taiwan la aqbali karin, inay Taiwan ku sheegay inay tahay jamhuuriyadda Shiinaha ay ka tirsan tahay, balse Somaliland iyo Shiinaha ayaa sheegay in ay wakiilo isdhaafsan doonaan, xiriirkooduna uu ahaa doono mid sii wanaagsanaada amba horo kobac sameeya, sida ay labada sheegayaan. Somaliland iyo Taiwan ayaa lamadoodaba midba aan la aqoonsanayn, iyadoo Shiinaha iyo Taiwan qaramada midoobay aysan ku jirin, balse hadda labadoodu ay la sheegayo inay is afgarad gaareen amba is aqoonsadeen sida lagu soo waramayo. daawadayaal warkayna caalamka Baraawe News intaas ayuu ku ogyahay. Dhinaca farsamada waxaa noo fadhiya Engineer Saki, anigu Cabdiraxmaan warka ayaan idin socodsiinayay. Faafinta warka waa xaggiina, sidaas iyo nabadgelyo daawadayaal.